السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارتا شرفت له ومركل iyo barnaamijkeeni aad iyo aad baan soo dhaweynaya aad iyo aad baad mahadsantihiin inta cusub ee u soo birtay iyo intii hore ila joogtay aad iyo aad baan ka mahadcelinaya barnaamij cusub ayaan maanta idin wadaa cholesterol ayaan maanta ka hadlaynaa cholesterol muxuu yahay cholesterol muxuu keenaa dhibaato ah maxaa looga hortagi karaa ayaa maanta rabaa inaan idin kala hadlo insha Allah cholesterol muxuu yahay horta cholesterol waa subag ama fat oo jirkeenu ku dhex jiro xididadeenu ku dhex jiro ama ku dhex jiro dhiig mareenka ku dhex jiro cholesterol waa wax fiican hadii uu intii loogu talagalay uu yahay laakiin dhibaatada waxay timaadaa marka cholesterolka uu kugu bato ama subaga uu kugu bato oo subaga waxa laga hadlayaa kan dhiigga ku jira qofka isagoo caata ah ayuu cholesterol qabi karaa fat kuma xirna qofka inuu cayilnaado kuma xirna inkastoo dadka cayilan uu badan yahay laakiin cholesterolku ma aha qofka buuran kaliya ayuu ku dhacaa adigoo caata ah ayuu kugu dhici karaa waayo wuxuu ku jiraa dhiigga ayuu ku jiraa waa wax dhiigga ku jira cholesterol hadaad maqasho waa wax dhiigga ku jira marka cholesterolka waa maaragtay aad iyo aad buu halis u yahay hadii uu kugu bato laakiin waa wax jirkeena uu u baahan yahay oo loogu talagalay qayb xadidan inuu ahaado laakiin wuxuu xumaadaa marka uu kugu bato cholesterolkuna wuxuu u kala baxaa laba qaybna waa bad fat ayaa la dhahaa waa baruurta xun iyo baruurta fiican ayuu kala baxaa labadaba dhiig ayuu ku jiraa marka tan fiican waa okay laakiin kan xun hadii uu kugu bato xididada ayuu ka xirayaa xididada jirka ayuu xirayaa kuwa dhiig mareenka ayuu xirayaa marka dhiig mareenkaas hadii uu xirmana maxaa dhacaya qofka waxa laga yaabaa inuu stroke ku dhaco ama heart attack uu ku dhaco ayaa laga yaabaa hadii uu ka fariisto dhiig mareenkii xidido fara badan oo kumanaan ah ayaa jirkeena ku jira marka xididadaas waxa la rabaa dhiigga xididadaas mara meel buu ka bilowdaa waxa la rabaa inuu meeshaas ku soo noqdo oo sida u socdo 24 hours waa inuu sidaas u soo wareegaa laakiin hadii uu fariisto dhibaato fara badan ayaa dhacda marka maxaa lagu gartaa marka dhibaatadaas inaad cholesterol aad leedahay maxaa lagu gartaa sawirkaas ugu jeedaan calaamadaas indhaha hortooda hadii aad isku aragto cholesterolka ayaa kugu badan ee dhakhtar si degdeg ah u tag calaamadaha indhaha hadaad ku leedahay dhakhtar u tag waa calaamadaha lagu garto dadka cholesterolka uu dhiigooda uu ku jiro maxaa kaloo lagu gartaa hadii uu cholesterol uu jirkaaga cholesterolka xun uu jirkaaga ku badan yahay waxa kaloo lagu gartaa waxa dhacda in laga qabto ama xanuun uu ka qabto dhinaca bidix caloosha korkeeda ilaa iyo meesha wadnaha inay ku xanuunto ayaa laga yaabaa xanuun dhinaca bidix ah xanuun pressure xoog ayaa dareemaysa inay wax culus ku saaran yihiin oo kale ayaa dareemaysa inay calooshaadu ay buuxdo oo kale adiga pressure lahaa ayaa dareemaysaa waxa kaloo dareemaysaa xanuun lugaha hoostooda ah ayaa dareemaysaa lugaha hoose ayaa ku xanuunaya hadalkaaga ayaa isdhaafaya qofka hadalkiisa ayaa isdhaafaya qofka si fiican uma hadli karo waxa kaloo dhacaya dhiigaaga hadii lagu cabiro dhiigaaga ayaa kor u kaca qofka hadii dhiigiisu uu kor u kacsan yahay calaamadahan aan soo sheegayna uu leeyahay qofkaasi si degdeg ah wuxuu ugu baahan yahay in isbitaal la geeyo oo cholesterol laga soo fiiriyo ama la soo ogaado dhiig laga qaado dhinaca haduu ku xanuuno oo indhahana hortooda ay waxaas baruurta u eg kaaga yaalaan oo si fiican aan u hadli karin oo hadalkaaga hataa aan si fiican aan qofka ula hadli karin lugaha hoose oo ku xanuuna waxa sadaa isku aragto dhiigaaga iska soo baar waxa laga yaabaa baruurta inay dhiigga ka soo xireyso oo meeshii ay maaragtay ugu xumeed aad joogto waayo marka ay waxaan soo bilaabanayaan qofka calaamad lagu garto malaha marka uu soo bilaabanayo laakiin marka uu stage-ka ugu dambeeyo uu gaaro ay calaamadahan ay bilowdaan maxaa keena marka baruurtan jirka fariisata maxaa keena badanaa waxa keenta diet-ka ama cuntada aan caafimaadka lahayn cuntada la shiilo cuntada take away ama banaamada laga gato inta ugu badan cholesterol hadaad maqasho waxa keena waa cuntooyinka banaanka laga soo gato ama waxaad cuntay waxa kaloo keeni kara hadii beer xanuun aad leedahay ama fatty liver aad leedahay waxa laga yaabaa in cholesterol uu kugu dhaco xataa waayo beerka
meeshii la rabay inuu good fat ama fatkii fiicnaa uu samayn lahaa ayuu bad fat samaynaya cholesterolka kugu badinaya kaliya xanuun hadaa leedahay kaliya haday ku xanuunayaan waxa laga yaabaa in uu cholesterol kugu bato kaliyaha way si fiican u shaqeynayeen okay waxa kale keeni kara qofka hadii uu leeyahay type 2 diabetes oo kale ama sonkorta ay ku badan tahay sonkor uu leeyahay sonkortuna iyaduna cholesterolka way keentaa high sugar qofka markuu sonkortiisu high tahay beerkii wuxuu samaynayaa bad fat ama cholesterol ayuu samaynayaa waxa kale oo laga qaada fadhiga badan qofka hadii uu exercise waxba sameynaynin oo iska fadhiyo maalin walba iska fadhiyo soo kacay oo fadhiya habeen iyo maalin iska fadhiyo isaguna waa uu keenaa cholesterol waa uu ku dhacaya fadhiga badan thyroidka qofka hadii uu thyroid is underactive thyroidka aan si fiican ku shaqeynaynin isaguna cholesterol kugu keenaa laakiin badanaa waxa keena cholesterol waa animal fat ama cuntada hilibka oo kale xayawaanka hilibkiisa ayaa badanaa keenta cholesterolka marka hadii aad isku aragto calaamadahan ama aad cholesterol leedahay iska ilaali hilibka faraha badan ama sonkorta waxyaabaha sonkorta fara badan leh sida cake doolshada biscuitka cabitaanka fara badan sonkorta ku jirta shaaha fara badan sonkorta ku jirta adig sonkortu way isbedeshaa sonkorta markaad cunto ay jirkaada gasho way isbedeshaa cholesterol way isbedeshaa marka sonkorta faraha badan iska ilaali cuntadan xunna iska ilaali maxaa kale oo maaragtay looga hortagi kara cholesterolka maxaa looga hortagi karaa cholesterol waxaad uga hortagi kartaa adoo cuna cuntada yareysa cholesterolka number 1 maxaa yareeya waxa yareeya brown rice ka ama briska oo brownka ah aad buu u fiican yahay fishka oo kale malayga aad buu u fiican yahay looska waxyaabaha looska ah aad buu u fiican tahay digirta oo kale qamadiga aad buu u fiican yahay iyo exercise adoo hatta maaha inaad gym tagtid inaad iska socoto maalintii ama howl aad guriga ka qabato oo kale dhaqdhaqaaq badan adiga fadhiga badan ayaa u xun dhaqdhaqaaq fara badan iyo cuntadaas fiican aan soo sheegay iyo olive oil saliida la dhaho olive oil aad bay ugu fiican tahay saliid cadeeda iyo waxyaabaha la shiilay cuntada hadda Ramadaan baa noo soo dhow marka waxa laga yaabaa dadka oo dhan inay maaragtay sambuus iyo bur iyo waxaas la cunaa wax yar waxba ma aha laakiin hadii aad cholesterol leedahay waxyaabaha saliida lagu dubo iska ilaali wax la shiilay oo dhan iska ilaali xataa bariiska la shiilo hilibka la shiilo waxaas dhan iska ilaali olive oil aad bay u fiican tahay avocado oil aad bay u fiican tahay macsarada xataa aad bay u fiican tahay laakiin waxyaabahan kale maaragtay saliida cad saliid cadeeda la dhaho vegetable oil ka la dhaho xataa ma fiicna iyo waxa la dubay sonkorta waxyaabaha sonkorta ku jira waxaas oo dhan iska ilaali laakiin muhiimadda waxa waaye inaad dhakhtar tagto dhakhtarkaaga u tag iska soo bar calaamadaha hadaa isku aragtay iska soo bar dhakhtarkaaga tag dhiig laga qaado marka saan hore idinku sheegay wuxuu leeyahay laba qayb cholesterolka bad fat iyo good fat cholesterolka xun iyo cholesterolka fiican marka ma aha in tiradii loogu talgalay ay ka bataan hadii ay ka bataan ay dhibaato keenaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin Ramadan Kareem Ramadan Mubarak Assalamu alaykum